الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا ليال إن شاء الله تعالى أبوابتني ومدرني إنوسي السعودي هذين مانتا قضب ونكسن أنو كهذا إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى هينو كأنفعه إذنك يا نجبا وحياله ونكسنا أنو كسر شكاني ما أنت وحينو كهذا qodob aad iyo aad muhiim u ah daqiiqado yar oo kooban insha Allah taala ayaa waxaanu doonaa inaynu ku mashquulno aynu nafteena iyo dareenkeena iyo damiirkeena u soo jeedino waxyaalahan faa'iidada ah waxyaalahan aad iyo aad ayay faa'iido ugu yihiin nafta iyo akhlaaqda iyo qofku iimaanka iyo qalbigiisa inuu dhiso sababtoo ah adduunkan waxa loo nool yahay wali ajillah subhanahu wa ta'ala wa ilaahi daraadi إلهي سبحانه وتعالى باكو أبوري إساقا كدليا إساقانا وإليه ترجعون إساقانا لا نقنيا ما دام إلهي سبحانه وتعالى لا نقنيا وإلهي سبحانه وتعالى لكلا لا يلانيو وحافي عن قف كستبا لكلا كإلهي سبحانه وتعالى إنو كفرحو إلهي سبحانه وتعالى قفكي لكلا كيسا كفرحا وكفرحيا قفكي كنحا إديدنا إلهي سبحانه وتعالى لكلا كيسا وكرايسريا أو ديديا أنو نقنو إن شاء الله تعالى كوكو فرحة إلهي سبحانه وتعالى لكل كيسا إذنكم يا آمين سان تدفر بدن بأمرك صلاة لسكو يورو صلاة إني أقعان وإني آذان ديديا مياد آمين سان محاضرة يشي وناكسن مر هدي لغاها يوميل كوا كرايسريا إني آذان مياد ديديا سانتاس مي ويجرتا markana waxa ogaataan la kulanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofkii adduunka ku naca oo meelaha wanaaga salaada meelaha wanaagsan qofkii naca inuu aado Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofkaasna la kulankiisa uu nacaya maxaa yeelay qofkaas wuxuu jeclaanayaa la kulanka shaydaanka iyo majaalisu shayaatiin ama majaalisu shaydaan ayuu jeclaanayaa la kulankooda iyo meelahaas inuu fariisto meesha xumaan lagu hayo meeshii dunuub iyo macaasi lagu hayo wuxuu jecel yahay qofkaas inuu fariisto laakiin meeshii Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrkiisii iyo kulankiisii uu diidaya qofkaas qofka maalinta yawmal qiyaame ama qiyaamaha la kulanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala nacaya maxaa yeelay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu mudiiban wax khayr muu sameyn diin muu sameyn insha Allah ta'ala aynu noqono kuwa jecelaada la kulanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa jecelaada meelaha khayrka lagu hayo inay camiraan adduunka dadka ahlu khayrka ee majaalista wanaagsan camira aakhirana majaalistoodu camirnaan bay noqonaysaa ta Ilaahay bay camirayaan oo majaalista jannada ay camirayaan oo iyaga loo diyaariyay laakiin hadii adduunka camir waayaan aakhiro inayna majaalista wanaagsan soo camirayn weeye ومن يطيع الله ورسوله قفك إلهي سبحانه وتعالى إلهي يرسول كيس عديعة نحن نقول مع النبيين ومع الشهداء مع الأنبياء والشهداء والصالحين لما أنتم كواس أو لن أيو معوذا نقول تدك رنت الشيقة معوذا نقول كوا صالحين تا معوذا نقونسا أنبياء معوذا نقونسا كو إلهي سبحانه وتعالى درادي وشهيدي وإلهي سبحانه وتعالى درادي ولنتي معوذا أيا نقونسا يو إيقات راعسا أو كقب جلسا أو جند اللي جلسا أو لجوجسا لكن أدونك هدي عدتك ونكسن راعي ودي دي آخرنا عدتك ونكسن مراعسي مركانا سيدينو آخرو يجند عدتك ونكسن ورعنو أدونك وإني ندتك ونكسن راعنا adduunka waa inay dadka wanaagsan raacna ma aha qofku maanta in dadkii wanaagsanaa uu naco oo khayrkii uu naco oo diintu uu naco oo cilmigu uu naco aakhirana marka uu soo xasto uu dhaho ilaahay baa khayr ka rajeenaya maaha waxa weeye adduunka waxa ku tahay ayaad aakhira ku tahay adduunka waxaad ku tahay ayaa aakhira ku tahay marka haddaad doonisid inaad aakhiro raacid dadka wanaagsan adduunka dadka wanaagsan raac insha Allah ta'ala oo wax wanaagsan ku hada النبي صلى الله عليه وسلم وحال ويدي سؤال ومعاذ بن جبل أصحابه لده أيها سؤال بويدي وحيري
rasuulkii allow sala allahu calayhi wasalam waxaad ii sheegtaa camal jannada i gelinaya naartana iga fogeynaya ii sheeg ayuu ku yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam. waxa weeye waa su-aal qofku markuu su-aashaas qofka weydiiyo layska garanayo qofkanu inuu meel khayra ku fakrayo, meel khayr ah ayuu ku fakarayaa. asxaabtu saasay ahaayeen. nebigu sala allahu calayhi wasalam su-aalo ka kooban bay weydiin jireen. nebigu sidee baan ilaahay u baranaa? nebigow maxaa camalka wanaagsan kee ugu fadli badan camalada wanaagsan aanu sameynaa? nebi allow maxaanu samayn doonaa? nebigi sala allahu calayhi wasalam way ka faa'iidaysanayeen. markay ka xishoodeen nebiga sala allahu calayhi wasalam su-aasha ha ku badina, qofka reer baadiye ah ee yimaada ee nebiga sala allahu calayhi wasalam u yimaada ee isdhaha su-aalo weydii way kusoo ururi jireen iyagoo doonayay inay ka faa'iidaystaan su-aasha. maxaa yeelay dee reer baadiyuhu waxba iskuma oga. nebiga sala allahu calayhi wasalam in yar buu la kulmaa, waxbana iskuma oga in nebiga sala allahu calayhi wasalam macnaha su-aalaha aan lagu badinna ma oga. wuu iska imanayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam su-aal buu weydiinayaa. marka maadaama uu sidaa yahay oo in yar uu la kulmayo intaa yarna uu doonayo inuu nebiga sala allahu calayhi wasalam wax weydiiyo uu iska tegayo, asxaabtu waxay samayn jireen way ka faa'iidaysan jireen. aad iyo aad ayay ugu soo dhowaan jireen, su-aalaha way ka faa'iidaysan jireen. markaana mucaad ibnu jabal baa wuxuu weydiiyey su-aalo aad iyo aad u qiimo badan. nebiga sala allahu calayhi wasalam su-aasha markii la weydiiyey waxaa jannada ii gelinaya naartana iga fogeynaya ii sheeg markii lagu yidhi, nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxaa i weydiisatay shay cadiim wa inahu layasiirun calaa man yasarahu allah. isaguna wuu u fudud yahay ciddii ilaahay subxaanahu watacaala u fududaysay. diintu waa sida ilaahay subxaanahu watacaala khayrka iyo wanaagga hadduu kuu fududeeya alxamdulilah waxaad noqonaysaa mid aan wax kala sameyn, mid khayr ka sameeya, mid aanan wax kale raali ka ahayn, iyadana fadli badan. adduunkanna wax qurux badan iyo wax foolxunba way yaalaan. waxa qalbigu jeclaado iyo wuxuu qalbigu necbaadaa way yaalaan. haddii heshid waxa quruxda badan ee aad jeceshahay, haddaa heshid kumanaan kale oo waxyaalo kale oo ka qurux badan ama isaga la mid ah ayaa jira. marka adduunku intaa kama dhammaado. almuhim adduunkan inaadan ku wareerin oo ilaahay subxaanahu watacaala wixii raali gelinaya aad samaysid. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu jecel yahay ku mashquul. laakiin waxa adduunka ugu wanaagsan ee yaala waxa weeye al-iimaanka adduunkaa laga helaa, laakiin aakhiro qof soo shaqaystay ayaa wax ah. awalan tacbudullah laa tushrik bihi shay-an. nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi ilaahay subxaanahu watacaala caabud oo ilaahay shirki ha u sameyn. shirki iska ilaali. shirkiga camalkaaga oo dhan ayuu baabiinayaa. shirkun fi lcibaadati. ilaahay subxaanahu watacaala cibaadada aad sameynaysid shariik iyo cid kale ha ugu sameyn. oo haddii aad ducaysanaysid ilaahay keligii bari. oo qof kaloo saalixa oo awliyaa ha baryin. oo qof kale oo ay isleedahay mansilo weyn ayuu ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa ka leeyahay ha baryin. oo nebiga sala allahu calayhi wasalam laftirkiisa ha baryine ilaahay subxaanahu watacaala xuquuqdiisa u daa oo ilaahay subxaanahu watacaala keligii bari. ilaahay subxaanahu watacaala xuquuq buu leeyahay, nebiguna sala allahu calayhi wasalam xuquuq buu leeyahay. nebigu sala allahu calayhi wasalam cidda diinta siisay ee iimaanka siisay ee rasuul inuu noqdo ka dhigtay sala allahu calayhi wasalam, oo waxay kusoo dejisay oo iimaanka siisay, oo xilli uu jaahilahaa uubana waxba aqoonba oo laa yaqra' walaa yaktub una waxba akhriyi jirin, waxbana qori jirin, oo xilligaa uu joogay kadibna ee waxaa siisay ilaahay subxaanahu watacaala weeye. ilaahay ayaa fadligaa nebiga sala allahu calayhi wasalam siiyey. laa yacrif salaatan walaa siyaaman walaa sakaatan walaa xajan walaa ana makaarima alakhlaaq lahaa fadaa'il walaa qur'aanan walaa yowma alqiyaamah walaa aljanna walaa annaar jamiicahum xataa annahu kaana laa yacrifu hadihi alashyaa. nebigu sala allahu calayhi wasalam janno muu garanayn, oo cadaab muu garanayn, oo kitaab muu garanayn, oo waxyi muu garanayn, oo malaa'ig muu garanayn, oo malakul jibriil muu garanayn, oo maalinta yowma alqiyaama muu garanayn, oo salaad muu garanayn, oo jihaad muu garanayn, oo soon muu garanayn. wax alaale wuxuu garanayay ma jirto nebiga sala allahu calayhi wasalam. hal mar ayuu ilaahay subxaanahu watacaala kusoo dejiyey waxyiga.
waxyigii baa lagu soo dejiyey macnaha waxyigii ayaa lagu soo dejiyey oo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxyigii baa la baray oo diintii baa la barbay oo step step aayadihii loo baray oo talaabooyin ayaa loo baray iyo waxaas oo dhan fadaa'il leh nabi ilaahi subhanahu wa ta'ala marka ina ilaahi subhanahu wa ta'ala xasuustid oo ina ilaahi ilowdid fadligiisii oo aad tiraahdo nabiga sallallahu alayhi wasallam isaga wax kastaba ah isaga barayaya oo isaga sidan ah waxa weeye waa wax mamnuuc ah ilaahi subhanahu wa ta'ala xaqiisasi nabigana sallallahu alayhi wasallam xaqiisasi laakiin maaha ilaahi inaad laa ilaaha illa iska tiraahid hadhowtana xuquuqdiisii aad dadka saalixiinta ah u qeybisid aad tiraahid hebel kana baraya la ilaahi subhanahu wa ta'ala kaligii bari oo kaligii ilaahi subhanahu wa ta'ala caabud xili kaliya imanasa oo macnaha qofku ku khasbi karo in wax shirkiya ama wax gaalnimo aad samaysid hadii lagu khasbo wax gaalnimo inaad samaysid oo macnaha de khasab weyn oo awood ah ayaa la sheegaya samee laakiin qalbigaaga waa inaad ka caqiideysnataa in waxan ay xaraan yihiin ay gaalnimo yihiin aad u sameynayso ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ruqso ku siiyay oo ku fuudeeyay oo uu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku baneeyay in aad wax yar gaalnimada gasho laakiin qalbigaaga ah ka qirsan tahay inay xaraan tahay inay gaalnimo tahay in markastaba ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliyi caabudid ama kaliyi uu ku leeyahay laakiin hadii markii lagu khasbo qalbigaagana aad tiraahdo waa sax waan ku raacayaa qalbigana aad ka raacdo qofkii gaalnimada qalbiga ka sameeyso waxa weeye gaal baa tahay salahan waa lagu dilay meel baa loo keenay awood xoog weyn baa lagu isticmaalay waxa lagu yiri diinta bas kaliya cay diinta aflagaadee bas baa lagu yiri inta yar iska samee laakiin waa ina ogaataa aflagaadadanu inay gaalnimo tahay inay ceeb tahay in diinta nabiga sallallahu alayhi wasallam qalbiga aadan ka aflagaadeenin laakiin aad jeceshahay halka waxa ku jira qalbi ma garanayo ciidan ilaahay ahay subhanahu wa ta'ala waxa ku soo dhaca iyo waxa laga sameeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya garanay marka hadii aad aqli isticmaashid oo macnaha qalbigaaga marka ma garanaysaa nabiga diinta wax laga sheego wax ka sheegtid laakiin ay iska dhamaato aad ilaahay subhanahu wa ta'ala hawshaadii iska weetid waxa weeye waa cadiim ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku dalacanaya halka qalbiga ilaahay subhanahu wa ta'ala baaskal kuwa cibaadeysanaya oo munaafiqiina kuwa been badan oo diinta hoosta ka nacab oo siday u amal falanayaan aakhirada dhahayamay halka yar halkaas ayaa bedesheen laakiin qofka islaamka ee muuminka haduu halka bedelo oo halka haduu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xiriiriyo innaka baaymeysto innan ka baqo qofkii diinta islaamka ku khasbay inuu ka baxo xitaa kama baxo wuxuu ka jecelahay wax kastaba dhimasho oo waxa jira laba asxaabood oo la diray waxa loo diray musaylimatu kadaab baa qabtay musaylimatu kadaab markuu qabtay musaylimatu kadaab ninkii nabinimada sheegtay laba asxaab buu qabtay asxaab wuxuu ku yiri anigu nabi baanahay waxaas wuxuu ku yiri nabi baanahay iqir hadii kale xogaa buu jira xogaa buu yiri waa kuwan waan ku dilayaa waan ku dhaawacayaa waan ku masiibooyin adigu waan aad iyo aad baan ku cadaabaya hadhow baa saxayg wuxuu yiri may hadaba wuxuu yiri may asxaabigu iska qirtay wuxuu yiri aduu naybaa saas uu ku fasax saxaabi kale buu ku yiri adna sidii kale sameey buu ku yiri siiro anigu waan ku ogahay inaad nabi ahayne xaamati anigu xaamati buu ku marhor ku yiri samarkii daban wuxuu ku yiri anigu nabi ma ahay wuxuu ku yiri anigu waxaan maqlo buu yiri waxaan maqli maayaba ugogoy udili saas oo ku dhinta asxaabi nabiga sallallahu alayhi wasallam baa loo yimi qisadii baa loo sheekay wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam anna waxa ilaahay ku ruqseeyay ba qaatay ajar baa leedahay sina casimidii iyo go'aankii ayuu ku adkaaday noo qaatay marka qofka iimaanka leh waa qofka sidaas ah ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa haynaga dhigo ilaahay subhanahu wa ta'ala ina caabudin wa tuqiimu salaadana ogtid وتؤتي الزكاة زكاتنا أبيسي وتصوم رمضان بشهر رمضاننا أهسونتي
xajkana aadid waa qaybtii koowaad nabigu sallallahu alayhi wasallam Mucaad ibn Jabal wuxuu barayaa in uu wax jannada gelaya oo nabigu sallallahu alayhi wasallam uu sheego marka u fiirso waxa weeye dhamaanta dadka islaamka shirki badana ma sameeyaan oo dad shirki sameeya maaha waa dad islaama 100% koob badan way jiraan oo shirki sameeya laakiin kuwaas waa iska naadir oo wax yar maxaa la doonayaa laakiin salaada in la oogo ta ugu badan ee maalintii 5 casho soo noqota waa taas qofka islaamka maxay dhibaysaa in 5 ragcadood uu iska tukado waxba dhimayso laakiin ogow 5 ragcadood waxa weeye qalbiga ayay bedeshaa qalbiga macsiyo kasta oo ku jirta 5 ragcadood way taatiraysaa iimaan ayay ku beeraysaa qiimaha ay leedahay xitaa waa cibaado badan ah sameyn waxba salaad badan ha tukan laakiin 5 waqti ku dadaal hadaa ku dadaalsid qalbigaagu wuxuu noqonayaa qalbi tirtiran oo macaasida iyo dunuubta Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka tirtiray rasuum rabadana inaad soontid waa iska bil kaliya waa iska adkaysanaysaa qofka iimaanka leh uu adkaysan qof iimaanka leh waxa weeye waa qof adkaysi iyo awood Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku abuuray isagu jecel yahay bisha Ramadaan uu ku farxaba oo hadii aad 5 salaadood iska hagaajisid adiga bisha Ramadaan ku farxaya xajka iyo iskada inaad bixisana hanti qof hanti leh ayay waajib ku tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam kadib wuxuu yiri ala adulluka ala abwaab alkhayr hada waa yahay abwaabada khayrka ma ku tusaa qofka muslimka inta markuu sameeyo wuxuu noqonayaa qof khayrka doona qof khayrka inuu ku noolaado doono noqonayaa qofka islaamka ee muslimka haduu iimaan yeesho ma buu joogi karo sababtoo ah maxaa yeelay wuxuu doonayaa in uu khayrka sameeyo janno inuu u tartamo inuu helo ayuu doonayaa sameedan arag dhalinyaro marka waxyaalaha kale laga sheekeynayo ku dadaasha waxyaalaha kale caadiga hadii kubad tahay kubad ciyaar ku dadaalasa oo maato dhaara miiteena samaato dhan samrasa oo maato dhan la dhacayo oo samrasa haday inay Facebook wax soo dhigaan ama meelaha YouTube-ka wax la soo dhigo ama TikTok-ka wax la soo dhigo kuwa dadaalaya oo soo jaraya oo soo barnaamijyada oo dadaalaya soo ma jiraan naxam macnaha qofka dadaal ba ku abuuran dadaalkaaga meelaad galisid waad ka mid keenaysaa diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadaalkaaga hadaa galisid wax weyn ayuu ku keenayaa mar waliba qofka bini'aadamka waxa ku abuuran dadaal shay la dhaho al-ijtihaad iyo ad-dafci wax doonitaan iyo wax iska riixitaan qofkaasu waxna uu iska riixayaa waxna uu doonayaa ad-dafciga ku abuuro inaa wax iska riixid hadii aad diinta galisid oo macnaha waxyaalaha xun ay iska riixid dunuubta iyo macaasida iyo waxyaalahaas aad iska riixid riixaagu wuxuu noqonayaa mid awood leh diinta ayaad awood ku yeelanaysaa waxaad sameynaysaa nafsiyan ayaa waxa u noqonaysaa qof diintana ogolaada waxyaalaha diinta ka soo horjeedana iska riixida ijtihaadka iyo dadaalkaaga hadaa dadaalka galisid cilmi baad baranaysaa waa dadaalaysaa abwaabta khayrka ayaa isku dayaysaa inaad doonato sababta aad dadaalkaagii iyo dalabkaagii waxa dalbisay wuxuu galay diinta marka abwaabu khayr ayaa doonaysaa in aad doonato marka abwaabu khayr ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ku sheegayaa hadaad qof mu'min tahay oo iimaan leh as-sawm junna waxa weeye waa soon waa gaashaan macnaha soonta badi baa laga wadaa soonta adigu badi sunayaasha iyo nawaafisha badi tii waajibkayd maaha soontu gaashaan ay ku tahay oo qofkii wuxuu sameynayaa qofkii uu akhlaaq u yeelanayaa oo aamusku badinaya oo qofka sooman dhicitaankiisu uu yar yahay oo waxyaalaha kale khiyaaliga iyo waxyaalaha ma galayo oo qofka sooman dunuubtiisu way yar tahay oo qofka sooman faa'iidooyin fara badan buu leeyahay oo qofka sooman maalinta yawmal qiyaame baabu rayaan ayaa la gelinayaa qofkii soomi jiray ee sunayaasha soomi jiray ee ku dadaali jiray maalinta yawmal qiyaame maalinta la gaajiysan yahay isagu min abwaabi sawm min abwaab aljanna soonta albaabada kamid ah jannada ee baabu rayaan la dhaho ayuu si galiyaa sababtoo ah qof sunayaal soo samay sunayaalna uu soo samay waajibkiina ka mutagi jiray wasadaqatu tudfi'u al-khadi'a kama yudfi'u al-ma'u an-nara sadaqaduna waxay baqtiisaa dambiyada ka baqtinaysaa
sida biyuhu ay u baktiyaan naarta. sadaqada markaa bixisid waxaa weeye qalbiga qofka bini-aadamka waxaa ku shidan shay la dhaho macnaha hadduu iimaanku ku yaryahay culays iyo dab iyo xanaaq badan iyo dabba hoose isaga shidan. hadduu doono waxba iyo xanaaq badnayn laakiinse dab baa jira qalbigiisa ku yara sidan maxaa yeelay qofkii iimaankii ayaa ka maqan. markaana sadaqadu waxay samaynaysaa dabkaas iyo waxyaalaha qalbiga kaga shidan ayay kaa dabcinaysaa step step ayay kaa dabcinaysaa. وصلاة الرجل في جوف الليل iyo salaada habeenkii uu tukanayo qofku. القيام الليل قيام الليل waa waxyaalaha ugu waaweyn oo qofka dambiyadiisa lagu dhaafayo. qofku uu hadduu habeenkii qiyaam الليل tukado aroortii insha Allah ta'ala uu nabadgeliyo iyo waxyaalahaas uu ku noolaanayo. walaalayaal waxaan doonaynaa insha Allah ta'ala inaynu maanta xadiiskaas isku faa'iideyno. xadiiska qiimaha badan iyo qaayaha badan nabiga sallallahu alayhi wasallam oo min jawaamic al-hikam la siiyay kamid ah. waxaan doonaynaa xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam maalinba qofku intuu awoodo intuu ka akhristo oo uu soo qorto hadhowtana uu qaybo hadhowtana uu ku dhaqmo. maalintii kaliya haddii aad 3 xadiis qaybtid bishii waxay noqonaysaa adigoo qaybay ilaa iyo 90 xadiis adoo qaybay ayay la mid tahay. maalintii 3 xadiis ku soo celceli iska qayb sanadkii waxay gaadhaysaa ilaa iyo 1000 iyo wax. markaan axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaas ayay faa'iido tahay. soo qoro maalintii 3 xadiis iska qayb ku soo celceli ku camal fal adiga waxaad ku noqonaysaa qof wanaagsan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrkiisa jecel oo doona. intaas ayaynu ku soo koobanaa. wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.